بسم الله الرحمن الرحيم واد مصدوري gobolka horta qorraxay oo la qabaa guud ahaan dhibaatada ogaadeen wadanka ogaadeenaya hadaan soo noqdo gobolka qorraxay dhibaatada gumaysiga markaan ku horeeyo macadowga waa mid iska caadi iska joogta wuxuuna la qabaa gobolada kale ogaadeenaya soonka qorraxay waxyaabaha dhacdooyinka la soo qaadan kara ka dhaca hadda intii birihii u dambeeyay waxaa ka mid ah kufsi kharasho dil inta waa ka dhacay marka aan ku horeeyo xagga kufsiga bishii 8aad 13keedii waxay ku kufsadeen gabdhay ku kufsadeen meesha la yiraahdo maraacato waxaa kale oo ay rarteen tay rag soo kaxaysteen meesha la xudureyni ayaa waxay ku geeyeen meesha la yiraahdo wabiya xagga dilka waxaa jirta dad ay laayeen markaas daraaddeed xagga dhibaatada cadawga waa mid iska joogta waxaa kaloo gobolku dheer yahay waa meesha gaaska ogaadeenaya lagu gumaystaa oo fadhiya saldhigiisa taasna mid gobolka dheer yahay xagga abaaraha ayana waa sidoo kale wadanku la qabaa iyada oo wixii adduunka ugu talagalay aan waxba laga siinin hay'adaha samafalka kulay hadda hay'ado saasoo ka howlgala ma jiraan wixii adduunka ugu talagalay ayaga yaa isticmaala waxa weeye baabuurta raashinka wada waxay u isticmaalaan intay ayagu kala degaan askartooda u dejiyaan bay jabada qaatay si jabada sumcadeeda maartay wax weeyaan laakiin dadweynuhu uu ogyahay iyo dadka xogaalka ka marka xagga abaaraha waa saas wax saasana dadka lama siiyo waa lagu rafaadiyaa waana lagu jirtaa waa muuqaal wixii loo adeegsadaa siyaasadeed loo adeegsaday raashinka madadka la siiyaa mise dabaqoodhi iyo dad ayagu samaysteen bay siiyaan oo hubba loo isticmaalo ay samaysatay dadka jawaasiista oo ay siisay dabaqoodhiga askarteeda sida kuwa ay askarta ku jira xaasaskooda waxyaabo noocaas u isticmaashaa dadku haday dhahaan ma hayno hub iyo ciidan ma hayno raashin ma la siin karaa lama siinayo wax hadda la siinay male waa inuu ninku qori soo qaato siyaasadeedu uu fuliyo dabaqoodhi uu noqdo asaas ma lagu siin karaa wax mashaariic ama horumarin ama ceelal oo laga qoday dhulkaas ma jiraan ma jirto waa gartay waxaana soo gaadhay in ay dhaheen mashaariic dugsiyo iyo wax noocaas ah aan dhisayna oo tuulooyinka qaarkood ay dugsiyo ka sameeyeen haddana ay xiriir ciidan ka dhigteen oo meelihii iskoolka loogu talagalay ee ciidamadooda degan yihiin arrinta maxaa ka jirsan weyne taas sida gobolada kale ka jirto kale weey meelaha ay u dhistay dugsiyada kulli askartada ku jirta waxaana baqaarada dabaqoodhiga qaarna ayaga ku jira waasaas waxyaabaha ayaga isticmaasha هذا ودانيga xoreynta ogaadeenaya marxaladaha iyo dagaalada aan ku jirno mid siyaasadeed mid military iyo mid dhaqaalaba si buuxda ayaa waxaan u helay taageerada shacbiga maanta oo ilaahay ugu mahadinayno taas waa tii shacbiga weeyaan dhinaca cadawga bulshada wuxuu ku hayaa dhibaato aad u fara badan oo isugu jirta xabsi kufsi iyo hantidiisa oo uu boobayo dhibaatooyin aan la soo afjari karin tusaale haddaan soo qaato bishan 9aad 3deedii ilaa iyo maartay 11keedii wuxuu ku kufsaday magaalada Wardheer naaga oo dhan 17 gabdhood uu ku kufsaday magaalada Wardheer gudaheeda taasoo mid walba gurigeedii uu kala baxay waqti habeenimo marka waxaa socda kufsigaas oo bishan 3deedii ilaa 11keedii intaas ayuu maray 17 buu marayay tuulooyinka magaalada ku dhow iyo miyiga dhamaan cadawgu weerar buu ku qaaday kufsiga iyo dhaca hantida ummadda socda runtii iyadana sida gaadiidkii iyo hantida ummadda ayadana wuu boobayaa ciidankiisa maanta wuxuu muujiyay oo dadkii kula dhaqmahaya falal foolxun oo bahalnimo oo boob ah oo uusan cidna ugu aabayeelaynin taas waa tii cadawga weeyaan جبهة القميص جالية جبهة القميص
ساليا